xilliyadii aan wax xasuusto waxa kamid ah isagoon diir lahayn oo dhagxaanta lagu fadhiisto goor la imaado wuxuu lahaan jiray xayndaab ku wareegsan oo dhagax dabara ayaa waxaan ku ori iska rogooynay dhigeen bas ugu xeernaa jirtay dayr muu jirin waxa muu jirin runtii xawal stadium walaal wax weeyaan garoonka ugu xamaasada badan leh waayo wuxuu ku dhex yaalaa xaafado ay marka horeba tirada dadkoodu aad u badan yihiin ku dhex yaalaa kooxo dhan inay ka qayb noqdaan bay jecel yihiin qof kasta in laga dhex arko laga dhex daawado garoonka ayuu jecel yahay maadaama garoonka ugu shacbiyada badan leeyahay garoomada xawaalda stadium waa mid kamid ah garoomada ugu waaweyn ee caasimadda Hargeysa waa kan ugu xiisaha iyo xamaasada badan waxa uu daawasho imaada kumanaan taageerayaal kuwaas oo daawada koobabka laga dhigo bisha Ramadaan garoonka kubadda cagta ee xawaalda stadium daba garoonkani waxa uu soo maray marxalado kala duwan sidoo kale garoonka kubadda cagta ee xawaalda stadium waxa ka soo baxay ciyaartooy badan oo taariikh ka sameeyay kubadda cagta marka la joogo caasimadda Hargeysa ilaahay ma hadlay oo salaamaya hon cable tv runtii xawaalda stadium walaal marxalado kala duwan buu soo maray waqtigan imika la taageen wuxuu maraya waqtigiisa ugu fiicnaa sportska dhalinyarada dhammaan wada fahmeen tartano wanaagsan oo istaba jooga oo bilaa mushkilada runtii garoonku xilliyadii aan wax xasuusto waxa kamid ah isagoon diir lahayn oo dhagxaanta lagu fadhiisto goor la imaado alxamdulillah sidoo dhaama maanta diir buu leeyahay garoonkii uu xidhan yahay ciyaartooyda oo diyaar taarbuuk si nabad u daawadaan ciyaaraha tartanada waqtiga hore ciyaartooyda iyo waqtiga imika kulli kubaddu mar walba ay kala duwan tahay qaabka loo ciyaari laakiin haddana marka la eego runtii marka walaal waxaan aad ugu faraxsanahay waqti xaadirkan xagga sportsku marayo garoonku diir muu lahayn markii uu dambeysay 2014 baa diirkan loo sameeyay runtii oo dhalinyarada isku tashaday u sameeyeen waxa aad uga qayb qaatay marka sameynta garoonka diirka waxa ka qayb qaatay Allah naxariisto Dito iyo xato nimanadii hore gacanta ku hayay garoonka MBB oo runtii shaqo fiican ka qabtay garoonka geer ku wareejiyay dhagaxaantii badankoodii ka saaray gudoomiye Kamaal marka runtii Maxamed Shiine jaamac marka runtii niman badan oo iyaga waqtigii dambe dadkii hore hagaajiyay nimadii hore waaweynaa hagaajiyay marka horena muxuu ah dhagaxa iyo meeshana xabaalaha ka shaqeeyna runtii iyaguna waa joogan marka anagu alxamdulillah waqti fiican baan soo gaarnay waqti uu habaysan diyaarsan oo waxbaanay ka maqnaynba kaliya alxamdulillah baan leenahay ku maadsanyiin dhammaan dadkii hore gacan fiican ka soo qabtay garoonka iyo runtii waxay ugu xamaasad badnaa ciyaaro badan marka ku ciyaaro garoonka ku soo koray way badan yihiin ma oran karo mar laba weeye ciyaaro badan oo xamaasad leh ciyaaro badan murugal labadaba waxa way soo mareen runtii tartano koob badan oo ku qaadnay waa jiraan waxma oran karo hal iyo laba iyo saddex ma soo koobi karo ma oran karo mar iyo laba iyo saddex gaar ah jira laakiin waxaan filayaa in ciyaaro aad badin ciyaaro aad wanaagsan xamaasad loo xaaladaha adag aan ku badbaadnay inay jiraan oo kala duwan Ramadaano iyo tartano kale aan waqtiyada Ramadaanta midnaba ahayn wallahi runtii soonkan iyo ciyaartu wax farqo badan oo u dhaxeeya ma jirto bariga hore la yaab jirnay markaan daawan ciyaartooyda waaweyn ma sameeyeen laakiin markaan da'da soo gaarnay waxba culays badan ba malaba waxa weeyaan waa ciyaartooyda gidwada in kooda sameeyeen ma jirto qof aan soo maray dhammaan Serie A iyo Serie B labada heerba waliba ku darso qaar baa laba garoon ka soo ciyaarayo imika markay ciyaarta dhamaato ama ciyaarta hore kale haddana cararayo garoonka la tagay marka runtii adkaysiga uu iska leen ciyaartooyda markay muxuu wada hafta baxsayn soonkana dhib badan waxba uma geysto runtii oo wala ciyaara waqtigan uu kooban yahay de saacado badan ma waxa gabigeeda waa 20 wax noocaas ayaa la ciyaara marka soonku saameyn badan kuma leeyahay runtii xawaalda stadium walaal wax weeyaan garoonka ugu xamaasada badan leh waayo wuxuu ku dhex yaalaa xaafado ay marka horeba tirada dadkoodu aad u badan yihiin ku dhex yaalaa oo muxuu ahaa xaafadaadu badan oo numberka dadka marka population density la eego marka horeba jaama ay ku dhex yaalaa saadaraad haddana meel fog baa laga imaaday sidii soo xamaasad badan u leeyahay gaara oo tartanku wuxuu ku dhamaada mar walba nabad tartanka eediyo biidiba taas ay keenaysa marka in aad loo wada imaato laga soo wada qayb galo marka tartanku haduu ku dhamaanayo si muxuu ahaa nabada kooxo dhan inay ka qayb noqdaan bay jecel yihiin qof kasta in laga dhex arko laga dhex daawado garoonka ayuu jecel yahay maadaama garoonka ugu shacbiyada badan leeyahay garoomada Afrika dhanna toodriya weeyaan ku soo dhawaada xawaalda stadium wuxuu ka fogaada balwadaha iyo maandooriyaasha kala duwan ee naafiyay ka soo qayb noqda sportska dalka horumariya insha Allah waxaan rajeynayaa in inta in ka badan ba horumarka dalka uu sportsku qayb lahayd isaguna ka ciyaaro ugu qadiimisan ugu taariikhda weyn la ama ugu faca weyn la xaafadan xawaadle waxyaabaha lagu xasuusan karo taalo ayuu runtii u noqon karayaa garoonku waxa maanta dayr baa loo sameeyay horumar fara badan baa ka muuqda tarabuun buu yeeshay alxamdulillah rabbil caalamiin tacab badan baa ku baxay madaxdeena kala duwan ee dawladaha hoose
ayaa sida badan garoonka tacabkan iyo xaafadaba odayaasha xaafadda ayaa ka qayb qaatay waxaa lagu xasuustaa taariikhda garoonkan wuxuu lahaan jiray xayndaab ku wareegsan oo dhagax dabara ayaa waxaan ku uri iska rogooyin ay dhigeen bas ugu xeernaa jirtay dayr muu jirin waxba muu jirin muxuu ahaa garoonkeennan maanta yani aad iyo aad ayaanad ugu farxaysaa se dadweynuhu daawanayo marxaladdaa dheer ee taariikhigaa buu soo maray waxa weeyaan maanta taariikhda garoonka waxaa aad iyo aad imika uga muuqdo markaad eegto yani xasuus dheeraaday runtii noo tahay saxaafad ahaan iyo idinka iyo dadweynahaba waxaan ku mahadnaqayaa oo kale garoonkeennan ciyaaraha had iyo jeer ka qabsoomaa waa ciyaaro bilaa rabshada dadweynuhu si xiisa laga soo qayb galaan ciyaaro xiisalaa sida badan ka dhaca waxa weeyaan anigu waxaan ahay daneeyayaasha had iyo jeer ale ku dhadhow kubadda cagta iyo dhallinyarteenna dhiirigelinaysa muxuu ahaa kubadda cagta aad baan u taageersanahay dhallinyartu waxaan jecelahay inay rabitaanto keliya kaga hadhin ay ciyaarta ay halkaa ka sii wadaan wallahi saaxiib taariikh waxay i muujinaysaa yani waxay muujinaysaa jawi farxadeed ayay i muujinaysaa waa wax lagu farxo rabadaantan iyo rabadaanadii ka horreeyeyba anugu had iyo jeer waan ka soo qayb galay kooxaha ku ciyaaraya yani ma kala dhacan waxaad moodaa kooxibo kooxda kale inay muxuu ahaa ay xagga ay muxuu ahaa hawaayadeeda yani ciyaartooyda ka muuqata kooxaha waxaad moodaa inay u socdaan heerkan ka sarreeya oo dunida kaleba la soo ciyaarno sida muxuu ahaa iyo garsoorkooda iyo waxoo dhan axmaaba halkan iyo ag taagan isaguna oo isna ogaa garoonkan muxuu ahaa wareeggan imika qabsoomay ama sanadkan qabsoomay oo kowdii bisha rabadaan uu inoo furayey meher xigeenku khadar nuur aad baan runtii u soo dhaweynayaa waa ku faraxsannahay